saddex nin oo walaalo ayaa nin baa reeyay inuu guursado guur labaad soo xalugu ninka hebel dhaawtay nin buu u yimid wuxuu niyo waxaan raacay la taliso heer labaad baa raacay sameeyay kadib wuxuu ku niyo ninka hebel oo walaalka iga weyn u tag nin wuxuu ka yimid gaboobay oo cirrale oo daa nin ka yar buu u tagay asuu siirseeyo kan ugu yariyay war ninka hebel aan u tagay wuxuu walaalka iga yar aaday say ka soo wareejiyay balka waran buu markaas wuxuu yiri aniga walaalka iga weyn yaa jiree waa runtii ana ka weyn buu laakiin ku kala ana iga weyn yaa jiree ba orod gaad buu ninkan dhaxay u tagay nin ciroobay oo laftiisuda ka muuqato laakiin kii hor ka yaryar kii hore bilaan ahaan ka yar isaga ka weyn si fiican ninka oo saddexaad wuxuu u tagay labadoodiba ka weyno timba ayna cadaan oo nin dhalinyaro ah xoog markaas wuxuu warnay labadan baa ay ka soo dirtay labadoo waxay ii sheegay aad ka weyntahay si fiican arrinkaas aan rabo khibrad ka rabay marka maxaad ugu talinaysaa xorta waxa khibrad kugu filan labadan ninba oo walaalada iga yar si fiican ninka hore laba reer buu ahaa ka dhaxaan laba reer buu leeyahay ana laba reer baan lahayn kii ugu horeeyay wuxuu laba dab ah ayay xaasaskiisu ahaayeen saasuu ku gubtay ajiib oo gubtay kii dhaxay wuxuu mid baa u qaboobay marka dhanka ka soo kululaado xagga oo keenay ariga wuxuu laba jannaan dhax alaayo jannatay ma dhax joogaan marka wuxuu yiri marka laba haween oo janna hadaad helayso dawaka hadii ka si ragaan baad u guurinaysaa marka nintu waa inuu sabir leeyahay oo u sabri kara maxaan ku dhahaa inuu eero noocaas dhaqi karo haddii aad ku cusub tahay channelka Somali Universe fadlan subscribe leh rukumana batanka notification-ka si ay ku soo gaaraan fiidiyoada ugu dambeeyay aan soo upload kareyno mahadsanid